وعنا wanaagsan daawade meel walba aad joogtid ku soo dhawow qaybtii xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga Jin bay ka ahaatay. Sheekadani waxaa tarjumay saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan Anteno, Fawzi Cabdi ayaana qoray. Qaybta muuqaalada iyo farsamada walaashin Xamdo Mataan ayaa gacan weyn ka geysanaysa. Meelihii ugu xasaasisanaa ee sheekada ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii xigta ee sheekada waxaana ay ku bilaabanaysaa. waxaa wax cad iska ahayd waqtigaasi in Shiireen ay wax fikrada aysan ka haysan halka aan joogno iyo jidkii aan mari lahayn halka aan waqtigaasi aan maraynay waxba kama duwaneen dhulkeena mid aad u shabahana ayuu ahaa sidii aan u soconay ayaa waxaa naga hor yimid silsilad dhagxaan ah oo xiriirsan aadna u waaweyn kuwaas oo dhulka 100 mitir u dhereersanaa waxaana gudagalnay inaan ku socono geesahooda ilaa markii dambe oo naga hor yimid god markaasi ayaan dushiisii dul istaagnay godkii annagoo iftiinkii godkaasi ka soo baxaya ay noo suurto gelisay inaan xitaa aan aragna halka uu ku dhamaanayo Shiireen ayaa markaas aan u bandhigay in godkaani aan ku dhex socono waa intaas oo wada gaaban uu noo noqday ama ugu yaraan aan helnaa wax cunna iyo wax aan cabno waxaase markaas iigu jawaabtay waxaa noo roon in aan dhagxaantaani aan ku dul socono oo aan korno halkii aan godkaas aan dhex gali lahayn kuna socon lahayn waayo waxa macquul ah inuu yahay god halis badan suurtagal ma ahan inaan ku qamarno fuulista dhagxaantan qaabka ay u xiriirsan yihiin ayaana suurtagal ka dhigaysa in la fuulo lacala haddii ay suurtagasho in aan halkaani aan fulno suurtagalnimada aan ku soo dhici karayno waa mid weyn sideed u aragtaa marka inaad adiga baxdo oo aad fiiriso halka ay ku dhamaanayaan kadibna marka aad soo ogaato aad ii soo laabato anigana halkaan aan kugu sii sugo aniga halkaan si fiican uma kala aqaano waana meel aan jaahil ka ahay sidaas awgeed marnaba kuma qamaarayo inaan kaliga halkaan aan kaaga tago aniga iyo Shiireen dhowr mar ayaan markaani aan tashanay waxaana isku raacnay inaan ugu dambeyntii godkaasi aan galna halistan aan u bareerno maadaama wada kale aysan noo furnayn kadibna godkii ayaan ku soconay muddadii godka aan ku soconnay waxaan maqlay cod si hoose oo ile xasan oo magacayga igu yeeraya markaas ayaan Shiireen waxaan weydiiyay halka iyada ay maqlayso codkaasi ani la igu yeeraya balse waxa ay sheegtay inaysan waxba maqlaynin haddana xoogaa yar kadib waxaan maqlay dhowr cod kuwaasi oo shabaha codkayga oo aniga ii yeeraya markii dambe codkii waxa uu bilaabay in uu kordho ilaa markii dambe madax xanuun badan aan ka qaaday markaas Shiireen waxay dareentay xaaladda taagan iyo waxa aan la dhibtoonayo waxaana igu tiri waxba ha cabsanin waayo xarfihii iyo astaamihii aad ku soo baratay qalcadii Aksantos ayaa laga yaabaa inay yihiin waxa ku yeeraya oo magacaada ku dhawaaqaya sidaasi awgeedna waa inaan halkaan degdeg aan uga baxnaa waayo waxa jira shay xarfahaasi dhaqaajiyay dhowr mitir markii aan sii soconay ayaan waxaan aragnay shakhsiyaad dhowr ah kuwaas oo da'dooda ay kala duwan tahay oo goobta maraya iyaga oo aan marnaba joogitaankeena ku baraarugin ama waxaaba macquul ah inaysan arkin balse jooq uma aanan dhihin oo waan ka sii gudubnay ilaa ugu dambeyntii aan godkii aan ka soo baxnay kuna soo dhacnay dhul doog ah cawskana meel kaga yaalo roobka uu da'ayo cawskana gacantii ayaan ku taabanay si aan u hubinno in uusan wahmi ahayn markii aan ogaaday ama aan xaqiiqsaday in uu dhab yahayna markaas ayaan Shiireen waxaan weydiiyay ma waxaan soo dhaxgalnay xuduudda magaalo kamid ah magaalooyinka boqortooyada sharta oo wada kale miyaan u soo marnay maya anaga haatan waxaan ku dhex jirnaa beer uu leeyahay qof aanan garanaynin waana beer aanan horay u arkin dhammaan magaalooyinkii aan soo tagayna aanan ku arag booqashadii aad magaalooyinka ku tagtay miyaad natiijadan ku ogaatay soo macquul ma ahan in beertaani mid kamid ah magaalooyinkaasi ku taal oo aadan arkin magaalooyinka sharta ee boqortooyada sharta waa kuwa aad u yaryar dadka deegaan ahaan u degan waa kuwa xadidan maalmo badan iskaba dhaafa dhowr saacadood ayaa magaalooyinkaasi goob aan u baran karaa waxay ila tahay inaad adiga aad ka badbadinayso arrintaas sidee ku dhici kartaa arrintaas adiga markaad magaalooyinka tagtay waxaad aad ula yaabaneed qaab dhismeedkooda iyo waxyaabaha la midka ah mana aadan ku baraarugin sida aad magaalooyinkaasi yaryar ee ciriiriga ay u ahaayeen xitaa wadooyinka mid wanaagsan oo hadaa kuwa dhaadheer xitaa ma aysan ahayn waadna fahmi kartaa in ay yihiin magaalooyin yaryar haddaba in iyaga oo dhan aysan ka badnayn dhowr kun oo mitir ayaan ku xaqiijin karaa laakiin dadka magaalooyinkaasi degan haatan ma waxaad leedahay xitaa way awoodi waayeen inay magaalooyinkooda ay balaarsadaan qofkii magaalooyinkaani degan wuxuu weynayaa doonistiisa ku aadan inuu wax badan uu ka ogaado iyaga isballaarinta kaliya ay ku taamayaan waa in ay badiyaan dadka deegaanka kuwii aan ku soo aragnay godkeena waxaa macquul ah sidaad u fakartay inay u fakareen oo ay u baxeen sidii ay u soo ogaadaan xuduudda magaalooyinkooda balse ay waayeen dareenka zamanka ah waan gartay beertan aniga shaki ayay igu abuuraysaa ee dib ma u laabanaa uma bogine
aniga xitaa uma aanan bogin oo shaki ayaan ka qabaa, balse in aan godkaasi aan dib aan ugu laabano waa arrin aanan dhici karaynin. Waana god u muuqda in uusan lahayn meel laga baxo. Haddii uu leeyahay meel laga baxana, kuwii ku dhex socday ee aan soo aragnay ayaa mar hore ka soo bixi lahaa. Badalka ay maanta oo dhan ay ku dhex wareegaysanayaan, sida in ay ku socdaan oo kala wada aan dhamaad lahayn. Haataan inamari aan ogaanay haddii beertaani meel laga baxa ay leedahay. beertii ayaan ku dhex soconay ilaa markii dambe aan ka soo gaarnay geeskeeda kale oo ay ku dhammaanaysay dhul qallalan oo saxaro aad muddo. Markaas ayay Shiiriin waxay igu tiri dhowr saacadood oo kale ayaan beerta ku dhex wareegaysanaynaa. Waa intaas oo aan helnaa waddo gaaban oo aan u marnaa halkii rikaafa ay joogtay si aan dib aan ugu laabanno. cabaar markii aan beertii aan ku dhex soconay ayaa haddana waxay iga dalbatay inaan geed dheer oo meesha ku yaallay aan fuulo. Markaas ayaan geedkii fuulay, kadibna waxay iga dalbatay inaan laan ka mid ah laamaha geedkaasi aan gacanta ku qabsado si fiicanna aan faraha ugu dhego. markii sidaasi aan sameeyay ayay guda gashay in ay igu qosasho, waxaana ogaaday inay igu jeesjeesayso. Markaas ayaana waxaa isku dayay in aan laantii aan iska daayo, hase yeeshee waan kari waayo oo laantii ayaaba igu dhegan ama geedkii qaybtiisii ka midka ahayd. si kasta ayaan yeela waana iska fujin waaye halka Shiiriinna igu qoslayso. Markaas ayaan ku iri, geedka igama fuqayo mana iska fujin karayo ee wax sameey. kasoo qaad in laanta geedka ay tahay gabar aad u qurux badan, kadibna sii wad in aad habsayso. Anigana waan soo laabanayaa muddadaasi si aan u ogaado jidkii aan mari lahayn. maxaa sidaas u samaynaysaa? laakiin run ahaantii aniga kuguma kalsooni inaad halkaana aad sii joogayso haddii aan kaaga tago. mana ku kalsooni codadkan baas ee aad maqlayso, kuwaasoo ay suurtagal ay tahay in ay meel halkaani aan ahayn ay ku kaxeeyaan, balse sidaan ayaad ammaan aad ku noqonaysaa intaan kaaga soo laabanayo ee sarnow halkaada. sidii ayay Shiiriin iiga tagtay dhowr daqiiqo kadibna way ii soo laabatay iyada oo ilaa waan soo ogaaday jidkiina geyn lahaa halkii rikaafo ay joogtay. keliyana dhowr saacadood ayuu naga jiraa, balse haataan ma baxayno oo berri subaxdii ayaan halkaani ka tegaynaa si caawa aan beertaani quruxda badan aan u seexanno. laantii geedka ahayd ee igu dhaganeed ayaa markaas iga fuuqday. geedkii ayaan kasoo degay xilli waqtigii uu maqrib uu sii cagacagaynayo. Shiiriinna markaasi waxay u dhaqaaqday il biyo ah oo meesha ku taalay. markaas ayaa intii dharkii ay iska wada dhigtay waxay bilowday in biyihii ay ku maydhato ama ku qabaysato. markii aan arkay Shiiriin oo qaawan biyahana ku qabaysanaysa, dhankeedii ayaan aaday iyadana. markii ay aragtay in dhankeeda aan u soo socdo ayaa waxay gacanta iigu tilmaamtay inaan meesha aan joogo aan ku istaago, balse dheg jalaq uma aanan siinin oo xaggeedii ayaan ku sii socday. halka iyada oo ii dhowla cadaynaysa ay biyihii ay ka soo baxday dhankaygiina ay soo aaday ilaa ay iga soo dhawaatay. waxaana aan niyeystay in caawa aan caruus aan noqonno. hase yeeshee inta suulkeeda afka ay iga saartay ayay igu tiri, ha ku fikirin xataa inaad aniga eela seexato. wixii horey u dhacayna sabab igu riixda ayaa jirtay ee qiyaaligan madaxaada ka saar. hana isku dayin mar kale inaad qaabkaani dareenka leh aad aniga ii soo fiiriso. markii sidaasay igu tiri ayay iga sii jeesatay iyadoo kusii socotay dhankii geedaha xilli ay sidii ay u qaawaneed ilaa ay istaagtay. waxaana ay bilowday inay igu qosasho iyada oo ii yeeraysa si aan u daawado ubax meesha ka baxayay. anigana kuma faraxsanan sida iila dhaqantay, sidaasi awgeed in aan iskibriye ayaan bilaabay. wicitaankeedii waan iska indhatiray, balse igama aysan joojina oo dhowr mar ayay ku soo celisay. markaas ayaa dhankeedii aan aaday si aan u arko waxa ay igu yeerayso. kadibna waxay i tustay ubax xaqiiqdii aad moodo mid qurux badan, kaas oo midabo kala duwan lahaa. Shiiriin markaasi gacanta ayay iga qabatay iyada oo dhoola cadaynaysa. waxaana niyadda iska irin ma waxay doonaysaa inay waali ay kugu rido, balse maba aanan kasii fikirin. waxa indhaha aan la raacay ubixii meesha ku yaalay, waxaana ka jeesan waayay habdhismeedkii Shiiriin oo markaasi i hor yaalay. waxaan ogaa inaanan iyada heli karaynin haddii aysan raalli iga ahayn. sidaasi awgeed inaan candhuufteedii laqa ayaan iska fujiyay gabi ahaanteed. geed meesha ku yaalla ayaana fariistay si aan maankayga aan uga saaro. cabaar markii halkii aan fadhiyo waxaan ku baraarugay in Shiiriin weli meesheedii ay taagan tahay oo aysan dhaqaaqin, sidii in ay u jir qaawan tahay. markaas ayaan u soo dhawaaday, waxaana iila muuqatay sidii qof kooma galay oo kale oo miyir aanan lahayn. waan u yeeray joogna maba lahan. markaas ayaan waxaan garabkii ka taabtay iyada, weliba sidii ayay tahay oo waxay eegaysaa dhankaa iyo ubixii. markaas ayaan ka shakiyay in uu saameeyo sixir xiriir la lahaa ubixii ay maanta dhan eegaysay. meeshii ayaan kasoo xambaaray anigoo geedkii hoostiisa seexiyey. si kasta waan isugu dayay inaan kiciyana waa ii suurtageli weysay. xoogaha markii sidaasi ay ahayd hal mar ayuu miirkii usoo laabtay iyadoo indhaheeda sharta laga akhrisanayo.
kadibna inta ay kala tuurtay ayay dharkeedii ku carartay sidii gabar yar oo iyada oo qaawan si kadisa isu aragtay oo kale. Iyada oo caraysan oo faruuryo qaniinaysa ayay dharkeedii xiratay. Daymadeedii oo dhanna waxay tilmaam ka bixinayeen sida ay u doonayso in ay idisho. Markaas ayay ii soo dhawaatay, waxay iga qabatay madaxa iyada oo indhahayga si fiican u fiirisay. Waxaan dareemay inay doonayso akhrinta afkaarteyda iyo inay ogaato wixii dhacay muddadii ay koomada ay ku jirtay. Markii ay akhrinta afkaarteydii ka dhamaatay ayuu halmar wejigeedii xanaaqii hayay gabi ahaanba ka baaba'ay, waxaana ay bilowday inay aniga i raali geliso. Balse markaani qofka caraysan aniga ayuu ahaa, maadaama ay ii malaynaysa inaan ahay nin ka faa'iidaysanaya fursadda uu helo ee isla markaana koomihii ay ku jirtay aanan la tacaalin caafimaadkeeda. Weli ma aanan gaarin heerka aad ii malayso, sidaad mudidna xaqiir uma ahi. Damiirkaygana ima siinaya inaan ka faa'iidaystay gabar qaawan oo aanan miir lahayn. Ma waxaad ii malaysay dadka qaarkii oo fursad gaadka ah, waxaadan raalli ka ahayn anigoo ma doonayo. Halkii ayaan gudagalay anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya inaan ku canaanto, iyada oo markaana caradaydii aan kala dul dhaco, laakiin kuma aanan fikirin sidaasi oo dhan dhankayga iga fakarayso. Shiriin muddadii aan ku qeylinaya waxay ahayd ruuxii dhagaysanaya, iyada oo ii sabraya raaligelinna bixinayay. Ugu dambeyntiina waxay tiri, aad ayaan uga xumahay, waana kugu qaldoomay xasan oo iga raali noqo. Aad ayaan ugu faraxsanahay sidaan mooday in aysan noqon. Markaas ayaan weydiiyey, maxaa samayn lahayd haddii aanba ku dhici lahaa falkaasi doqonnimada ah? Marka hore waan ku dili lahaa, kadibna waan ka shanlayn lahaa, waayo waxay ahayd in aan ku dilo marka hawshaani noo dhammaato. Balse hawshii oo qabyo ah haddii aan ku dilo aniga shalay ayay ii tahay. Ilaah baan kuugu dhaariyay adiga wax waalan inaad tahay baan moodayba. Ha, aniga waan waalanahay, ee haatanina mari aan degdeg isaga tagnay goobtaani lacnada ku dhacday. Halkii ayaan ka soo dhaqaaqnay, waxayna muddadii jidka ku jirnay ii sheegtay inay goobta aan joognay ay waqtiyada zamanka ay cunto jinniga ku cuni jireen, balse aysan basharka saameyn aysan ku yeelan doonin. Sidoo kalena waxay ii sheegtay haddii ubixii ay iyada fiirinaysa aan ka fogaan lahayn, ay muddo bilooyin ah ay koomadaasi ay ku jiri lahayd. Sidoo kalena shaki weyn ay ka qabto in shakhsiyaadka aan godkaasi ku aragnay arrintaasi oo kale ay la kulmeen. Markaas ayaan waxaan weydiiyey su'aal ahayd, halkan yaa mas-uul ka ah? Ma aanan fahmin aniga. Midda kalena maxay tahay sababta uu sixirka meeshaani markii hore saameyn kuugu yeelan waayay? Waxay iigu jawaabtay, ma garanayo midaas. Waxaana macquul ah in ubixii aan eegayay uu saameyn gaar ahaaneed igu yeeshay. Waxaa kaloo macquul ah maadaama aan halkaani aan ka tegay markii aad geedka saarnayd kadib, aniga oo wadooyin kale oo soo gala aan raadinaya in saameyn igu yeeshay. Balse waxaasi oo dhan waxaa iga daran in qofka halkaani maamula uu wax ka yaqaano culumtii sixirkii hore ee qadiimiga ahayd. laakiin ma kula tahay in sheekadaani mid ka mid ah amiiradaha magaalooyinka ay ka dambeeyaan? Amiiradaha magaalooyinka waxay awoodooda ay ku leeyihiin xuduudda magaalooyinkooda, balse meel ka baxsan maya. Sidaas awgeed ma arkaysid amiirad magaaladeeda ka fogaanaysa xitaa 100 mitir, balse markii ay magaalo kala booqanayso waxay raacaan wadooyin nooc kale ah oo aadan haatan adiga fahmi karin xasanow. Intaasay ka sokowna da'da ay jiraan amiiradda maba u saamaxaysa inay haystaan cilmigaani oo kale. halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskeyga jin bay ka ahaatay. sheekadani waxaa qoray Fawzi Cabdi Cabdiraxmaan Xasan Anteena ayaa tarjumay qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.